marka waxaa isleeyahay eedda iyo shirkaasi oo ILO sanadkan oo ay dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gabax weji gabax iyo foolxumo kala kulantay waxaa mas-uuliyadeeda iska leh wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Yuusuf. wafdiga dowladda soo qortay inta shirka joogtay farqiga u dhexeeya inuu ahaa farqi aad u ballaaran oo ay dadka isweydiinayaan dowladda haddii 22 qofood ay codsatay in visa loo siiyo oo ay shirka ka qayb galaan maxaa keena sababta ay dad tiro yar oo aan 10 qof gaaraynin ay shirka ku matalaan in wasiirka lagula xisaabtamo ummadda Soomaaliyeedna la tuso dadka shirkan ka qayb galay oo viisooyinka la soo siiyey dowladda waxay dhahday waxaan aqoonsanahay urur kale oo ay magaciisa meesha ku qoran yahay oo cidda rabtay arki karto oo la yiraahdo Festo ayaa ah ururka kaliya oo ay Soomaaliya dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay kaas ayaana ah kan rasmiga ah oo ay ILO u gudbisay oo ay dhahday kan ayaa ah kan ka qayb galaya shirarka oo ay dowladda aqoonsan tahay ILO markii sida ku qoran reportka ILO soo saartay waxaa lagu qanci waayey oo si cad loo sheegay inaysan kriteeriyadii soo buuxinin uusan ahayn ururkii saxda ahaa oo Soomaaliya oo ka jira taasaa keentay in lagu qasbo in ururka shaqaalaha oo aniga ah hogaamiye oo xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed taas waxaa isleeyahay waa gaboodfal iyo ceeb iyo ixtiraam darro dowladnimada Soomaaliya lagu sameeyey waxaana isleeyahay waa arrinta ceebta keentay maanta in wasiirka uu sugi waayo intii ay ILO shirki qodobadii laga soo saaray uu sugo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديال تلفزيون كيونيفرسال أياد نجد داون إنسان كسر دواده ورئيس الجاره أو كسابسن شركة هيئة شغالها الدونكا ILO السنة لها أو دوان لوسو جبجبيي ودن كسويسرلاند أي وحى كقيب جلي وفد كسعود الصومالية سنة ضرب الصومالية شركة وحى كقيب جلا حبنا كسعود الدولة ده جرهان وزارة الشقة يرمها برشة يسدو كله xubno ka socda ururka shaqaalaha Soomaaliyeed haddaba si aan faahfaahin uga helno Soomaaliya sanadkan waxa shirkaas ay la tagtay iyo xaaladda guud ku gadaamanba waxa haatan qadka toos ugu jira Maxamed Cusmaan Xaaji Cali oo ah gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo ka qayb galay shirkaasi gudoomiye oo kugu soo dhaweynaya Universal TV ugu horeyn faahfaahin naga sii bal Soomaaliya sanadkan shirkaas maxay la tagtay walaal aad u mahadsan tahay waxaan u mahadcelinaa Universal dadaalada dheer oo ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan aad u mahadsan tahay Soomaaliya sanadkan shirka waxa uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ka urur shaqaale ahaan oo aniga gudoomiye u ahay kama mid ahayn wafdiga rasmiga ah ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaana meesha ka dhacay wax aan dowladnimada Soomaaliyeed aan u wanaagsanayn oo ku ah ceeb iyo dadnimo xumo marka waxaa isleeyahay eedda iyo shirkaasi oo ILO sanadkan oo ay dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gabax weji gabax iyo foolxumo kala kulantay waxaa mas-uuliyadeeda iska leh wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Yuusuf. maxay tahay sababta keentay marka inaad shirkaas ka qayb gali weysaan idinkoo sanadihii la soo dhaafay si joogto ah uga qayb galayay walaal aad u mahadsan tahay ururka shaqaalaha ama xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo aan gudoomiye ka ahay wuxuu shirka ILO ka qayb galayay ilaa 2015 waxaan nasiib xumo ahayd oo nasiib darro ahayd in wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo ah wasiir cusub oo aan howsha wasaaradda iyo shaqada wasaaradda aanan wax badan kala soconin uu qaatay in ururka shaqaalaha Soomaaliyeed laga reebo shirka oo uu wasiirka goostay in uu dad gaar ah oo uu urur shaqaale ka dhigtay uu shirka ILO u wado taasna waxay keentay ceebta ee meesha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kala kulantay cidii qof kastoo Soomaali ahna uu arki karo sida ILO ama hay'adda shaqaalaha adduunka ILO shirka gabagabadii qodobadii ka soo baxay sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ula kulantay ceebta iyo oo wasiirkana sugi waayay in uu gabagabada shirka uu goobjoog ka ahaado taas oo keentay wasiirka ayadoo aan la soo saarin ILO qodobadii shirka ka dhacay iyo sidii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha doodeedii ay u dhacday inuu kasoo tagay wasiirka oo uu shirka dhameysan waayo yihiin marka dadka idinka idinku bedelay aad ii sheegayso in wasiirku uu shirkaas magaciina uga qayb galiyay walaal aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u bidaamiyo mas'uuliyiinta dowladda ugu sareyso ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud
oo ahaa xilligii kale hore uu madaxweynaha termkii haddeer termkiisi ka horreeyey uu ahaa madaxweynihii ururka shaqaalaha xafladihiisii kooda may ka qayb geli jiray ururkana si fiican u yaqaanay waxa sanadkan dhacay inay dowladnimada ceeb ku yihiin. waxa sanadkan dhacay waxay ahayd in wasaaradda dad gaaraya ilaa 22 ruux ah oo ay dhahday waa ururadii shaqaalaha iyo wasaaradda iyo loo shaqeeye oo hal qof ka socday. shirkan sidaa la socoto waa shir 3 geesood ah oo ay ka qayb galaan loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha iyo wasaaradda dowladda oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hormuud u ah. waxaa dhacday sanadkan in dad fara badan shirkaasi la geeyey oo loo qoray dadkaasna waxaan rajeynayaa in wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo golaha wasiirada madax u ahna uu la xisaabtami doono arrintaasna ay noqon doonto arrin lagu xisaabtamo. waxaa dhacday in shirkaas dad fara badanna lagu qoray dadkiina aanay imaanin. saasi lamid ahna wasaaradda ay sheegtay in urur shaqaale kale oo ay wasaaradda aqoonsan tahay oo annaga aanan ahayn ay shirkaas keentay. ciddii rabto faahfaahin dheer waxay heli kartaa riboodka ILO soo saartay. haddii loo baahdana waa faahfaahin doonaa wixii meesha ka soo baxay iyo waxay wasaaradda la kulantay. waaya marka weli haddii aan si kale kugu dhigo dadka la geeyey shirka ma waxaad leedahay ma ahan xubno matalayay ururka shaqaalaha ee Soomaaliyeed? annaga markaan shirkaas tagna horta waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed annaga markii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay diiday in anagoo matalayna shaqaalaha Soomaaliyeed aan shirkaas ka qayb galno. waxaa ilaahay mahadiis ah in ururo oo xubno ka nahay oo la yiraahdo urur oo ururada shaqaalaha Afrika oo dhan ay madax ay ku jiraan oo la yiraahdo Organization of African Trade Union Unity ayaa wuxuu noo fidiyay casuumaad si aan shirkaas uga qayb galno. waan uga mahad celinaynaa shirka saasaa ku tagnay. markaa shirka tagnayna waxaa xaq u lahayn inaan ILO weydiino sababta ay dowladda ama wasaaraddeena oo mas-uul ka ah ee ururada shaqaalaha oo sanad walba shirkaas laga qayb galaya iyada tahay cidda mas-uulka ah oo wafdiga wasaaradda uga qayb galaya ama ururada shaqaalaha ama loo shaqeeyaha uga qayb galaya cidda qoraysa ee ayada ah sababta ee nooga soo tagtay. waxaana feelgareena wax loo yaqaano objection oo ILO guddigeeda credential committee-ga waxaa u gudbinaya cabashadeenaas. wasaaradda waxaa la weydiiyey inay kasoo jawaabto eedda ah annaga u jeedina wasaaradda shaqada oo ah sababta annagii oo 13 urur shaqaale matalayna ururada shaqaalaha adduunka xubno ka ah global unionska ku jirna sababta ay wasaaradda nooga soo tagtay. wasiirkana wuxuu qoray jawaabtii oo ay wasaaradda la ahayd taas oo noqotay midda wasaaradda in wasiirka shirka uu soo dhammaysan waayo oo ceebta maanta riboodyada caalamka kusoo baxay oo ah in wasaaraddii ay ku guuldareysatay wax loo yaqaano violation of human right oo ay ahayd in ururadii shaqaalaha ay u sinaadaan xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ama qof kastoo shaqaale Soomaaliyeed matalana ay ahayd inuu xaq u yeesho in wasiirka uu hor istaagay. taasna waxay keentay in ILO soo saarto in dowladda ama wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha lagu eedeeyo qodobka 3aad faqradiisa 5aad dastuurka ILO inay wasaaradda ku xadgudubtay oo qodobadeeda ku cad. waxaa kaloo si cad wasaaradda loogu sheegay in ururadii dalka matalayay aysan la tashanin laguna qasbay sanadaha soo socda wasaaradda inay la tashato ururadii shaqaalaha saxda ah dalka ka jiray. ciddii rabto riboodka laga soo saaray oo ILO ka soo saartay oo beedka ILO ku jiro beedka Soomaaliya waxay ku qoran tahay beedka 22aad. ciddii rabto faahfaahin halkaasay ka heli kartaa. waayahay markii wasaaradda la weydiiyey arrintaas maxay wasaaraddu u cuskatay marka in idinka soo tagto dad kalena ay shirkaas magaciina uga qayb geliso? walaal waa waxa aadka ula yaabnay oo fajac nagu noqday in wasiirka si aanan gagambasho lahayn oo ay qoran tahay wasiirka uu u sheegay in aanan ahayn urur shaqaale dalka ka jiro oo aan matalin shaqaalaha Soomaaliyeed uu si cad ah u sheegay eed shakhsi ah oo ururka mas'uuliyiinta matalayay oo wafdigeena ahaa oo 3 qofood ah oo shirka qayb galay oo aan rabin inaan inta ka sheego oo ay tahay si lagula xisaabtamo madaxda ugu sarsareysa dalka aan la wadaagi doono inuu eedo shakhsi ah wasiirka noo soo jeediyey. taas oo ay ILO haddii riboodkeeda la akhriyane ay riboodka ku cadeysay in eedaha wasiirka uu u soo jeediyey mas'uuliyiinta ururka wax cadeynaya inuusan u haynin sidaas darteedna ILO iska diiday eedda oo wasiirka u soo jeediyey. marka waa garan la'nahay waxaa ilaahay mahadiisa ah in meesha la joogay oo xarunta UN ka ahayd oo ILO ahayd ee tahay goob cadaalad ah oo aanay ka jirin cadaalad darrada aan dalkeennii hooyo
oo aan mas-uulka ka ahayn oo intaasoo sano u matalayna ururada shaqaalaha na lagu geysta cadaalad darradaas in xaruntii UN-ka iyo ILO ee go'aamisay inaan cadaalad helno oo justice helno oo wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaraddaas iyo wasiirka shaqada ee u istaageen sidii loo burburin lahaa ururka shaqaalaha oo ay go'aansadeen inaan Soomaaliya laga dhigo goob ay sharci ka jirin oo aan waxaa aad uga xumahay in goobaha ama platformyada adduunka ay dowladda Soomaaliya iyo dad Soomaaliyeed ay isku qabsadaan oo eed iyo dacwad maanta Soomaaliya wafdigeedii hareeyay uu riboodyada caalami kusoo baxo waxaan waqti badan gelinay inaan dowladnimada Soomaaliya ilaalino waxaan aad waqti badan u gelinay madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan ognahay iyo ra'iisul wasaaraha inay yihiin dad gudaha jooga dalka ka warqabaan xaaladda ka warqabaan inta aan ururkan shaqaalaha ka shaqaynaynay waxaan nahay ururka kaliya oo muddadii dalkan burburka ka jiray ee dalka ka hirgeliya xarun ay ururada shaqaalaha Soomaaliyeed leeyihiin oo ay dowladda oo madaxweyne xasan sheekh madaxweyne ka yahay xilligiisii hore dhulka maanta ay wasaaradda ururka shaqaalaha xaruntiisa ku taalo oo uu madaxweynaha bixiyay maanta in uu annagii oo ah ururka shaqaalaha ee matali jiray ee shirkan ka qayb gali jiray oo wasiirka si dhiiranaan ah oo intuu ILO xarunteeda u tago warqad oo ay wasaaradda instaatadeeda iyo saxiixiis ku taalo uu aadeen shakhsiga inta noo soo jeediyo isla markaasna haddana wasiirka uu warqad ku qoro isoo dowladda Soomaaliyeed matalayo oo wakiil ka ah madaxweynihii jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihii dalka uu yiraahdo nimankan ma jiraan taas waxaa isleeyahay waa gaboodfal iyo ceeb iyo ixtiraam darro dowladnimada Soomaaliya lagu sameeyey waxaana isleeyahay waa arrinta ceebta keentay maanta in wasiirka uu sugi waayo intii ay ILO shirkii qodobadii laga soo saaray uu sugo waayahay maxamedow waxaan ku weydiinayaa adigu waxaad madax ka tahay Sokotu oo ah xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed marka ma urur kale oo dawladdu ay samaysay oo waxaa jira idinka idinku bedelay oo shirkaasi ka qayb galay oo doodiinu masaasa mise wax kale jira maha waa saas sida report ku cad dowladda waxay dhahday waxaan aqoonsanahay urur kale oo ay magaciisa meesha ku qoran yahay oo cidda rabtay arki karto oo la yiraahdo Festo ayaa ah ururka kaliya oo ay Soomaaliya dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay kaas ayaana ah kan rasmiga ah oo ay ILO u gudbisay oo ay dhahday kan ayaa ah kan ka qayb galaya shirarka oo ay dowladda aqoonsan tahay ILO markii sida ku qoran reportka ILO soo saartay waxaa lagu qanci waayay oo si cad loo sheegay inaysan kriteeriyadii soo buuxinin uusan ahayn ururkii saxda ahaa oo Soomaaliya oo ka jira taasaa keentay in lagu qasbo in ururka shaqaalaha oo aniga ah hogaamiye oo xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed lagu qasbo wasaaradda inay ururkaas la tashato sanadka dambana iyadoo oo wasaaradda la tashatay ururka shaqaalaha oo aniga gudoomiyaha ka ahay iyadoo la tashato oo aan raalli laga weyahay shirkaas aan nimaadno taas oo guul u ahayd shaqaalaha Soomaaliyeed iyo ururka shaqaalaha Soomaaliyeed xiriir guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed aniga gudoomiyaha u ahay ee u ahayd maalin farxadeed in aan cadaalad ku xarunta UN-ka dhexdeeda oo ILO ay si cad u sheegto in xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed Sokoto lala soo tashto maadaama annaga dowladeennii oo islahayn waxay cadaalad ka shaqayn doontaa gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay si bareer ah noo diiday inaa shirarka caalamiga ah ku matalno sanadkan marka waxaa isleeyahay waxay u ahayd cashar wasiirka shaqada uu ka barto in goobaha caalamiga ah oo la imaado aysan iska ahayn meel oo wasiirka waxyaabaha kaloo aadka cajiib ku ah ay ahayd in wasiirka si shakhsi ah oo uu madaxda ururka si shakhsi wax uga sheegay waxaana rabnaa warqadaas oo wasiirka qoray inaan la wadaagno mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeyo haddii ay wasaaradda warqadda u qoray ay noqon karto wax Soomaaliyeed lagu matali karo oo wasiir lagu noqon karo oo dalka wasiir ummadda Soomaaliyeed matalo oo goobaha caalamiga la tago waxyaabahaas oo kale waxaana isleeyahay arrintaas arrin xisaabtankeeda oo dalka gudihiisa ka dhici doono inay noqoto hadduu Allah awoodi lahaa idmo waayahay ugu dambeyn fariinta aad arrintan ka dirayso iyo talooyinka aad madaxda qaranka u soo jeedinaysa maxay tahay walaal aad mahadsan tahay waxaan rabaa oo inaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan ogahay inuu yahay ninka ugu sarreeya dalka oo ah madaxweyne dalka gudihiisa joogay waqtigii dagaaladii jiray halgankii shaqaalaha Soomaaliyeed ee soo galeen muddada dheer ka ahana ka warqabo oo maalin walba ama maalinta shaqaalaha ama 1 May oo maalinta shaqaalaha adduunka nagala qayb gali jiray
oo aan dhiirigelin iyo waxa iska heli jirnay inuu arrintan ra-iisul wasaaraha oo asigana sidaas oo kale ah macalinkeyga ahaa dalkii joogay ka warqabay wax dalkan muddadii uu burburka ka jiray ka socday iyo howlaha aan soo qabanay isagina oo wasiirka intuu la xisaabtamo uu weydiiyo waxa meesha ka dhacay riboodka ILO ay soo saartayna la akhriyo kadibna aanan ayadoo dowladnimada Soomaaliya lagu ciyaarin oo platformka caalamiga ah markay Soomaaliya tagto ay noqdaan dad dalkoodii burbursanaa dhallinyaradoodii shaqo la'aan yihiin tahriib iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku baaba'ayaan in meesha ay noqoto meel Soomaaliya ka faa'iido oo gudiyada goobaha ILO oo ugu horeyso shaqo hufan decent work programka iyo mashaariicdii ILO iyo dadka Soomaaliyeed looga faa'iideyn lahaa aysan noqonin mid dowladda Soomaaliya iyo ururadeeda is haystaan oo meeshii ay hareeyaan oo riboodyo laga soo saaro oo aan wasiirka iyo wasaaradda shaqada lagu amro in wixii hadda dhacay isan sanad dambe dhicin waxaa isleeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inay arrintaas ayaga qaataan mas-uuliyaddeeda ayna kula xisaabtamaan waxyaabihii kale oo ay dadka Soomaaliyeed ka warqabaan oo ay ogtahay in baraha bulshada ay hareeyeen ay ugu horeeyaan arrinta wasaaradda iyo dowladda walaalaha aan nahay ee Sacuudiga dhexmaray la ogyahay iyadoo la ogyahay in maanta website-yada caalamiga ahaa iyo TV-yada adduunka ay isla dhexmarayaan in wafdi dowladda Soomaaliya ee qortay oo shirka ILO ka qayb galay aysan dib ugu noqonin dalka waxaan rabaa in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda asigana ugu baaqo haddii ay arrintaas dhicin oo ay wafdigii 22 ahaa oo ILO reportkeedana ku soo baxay oo shirkana inta joogtay la arkayay intii fiisooyinka la soo siiyeen ee caddeed in wasiirka lagula xisaabtamo ummadda Soomaaliyeedna la tuso dadka shirkan ka qayb galay oo fiisooyinka la soo siiyey oo intay TV-yada hor yimaadaan ayagoo fiisooyinkooda saas u haystaan ee dhahaan shirki waa ka qayb galnay shirki waan ka qayb galnay waana soo noqonay exitkii aad dalka uga baxnayna waa kana interigii aad dalka kusoo galna waa kana la dhaho oo ummadda Soomaaliyeed wixii meesha ka dhacay iyo fadeexadii ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed meel cad laga istaago oo arrintaas la caddeeyay inaysan waxba ka jirin waayay arrinta aad soo hadal qaaday baraha bulshadana qabsatay in ay soo laaban waayeen xubnihii shirka ka qayb galay arrintaas ma jirtaa walaal aad u mahadsantaa horta shirka wuxuu soo dhamaaday shala galab 6 iyo barka maqribnimo cidda visa la siiyeyna waxay noqon doontaa wixii markaas ka dambeeyay ayaa la ogaan karaa ciddii shirka ka qayb gashay oo dib u noqotay intaa ka qayb galin laakiin waxa aan la qarin karin page-ka ILO ku jira waxaa waaye wafdiga Soomaaliya 22 qofood inay ILO usoo dirsadeen ee dowladda dhahday 22 qofood ayaa shirkan nooga qayb galayso ayadoo la ogyahay dadka shirkaas waa ka qayb galayaan la dhaha qaarkood inay wasaaradda ka shaqaynin qaar inay shaqaale dowladeed ahayn ma rabno arrintaas inaan idaacadaha iyo la nimaadno waxaan rabnaa si hoose inaan madaxda dalka la wadaagno oo aan u sheegno wixii meesha ka dhacda annaga waana la weydiiyey waxaana u sheegnay in dowladda la weydiiyo waxa wafdigii dowladda ahaa ee soo dirtay oo mas-uulka ka ahaayeen oo shirkan imaadeen meesha ay ku dambeeyeen marka waxaa isleeyahay haddii ay wixii dhacay oo baraha bulshada lagu arkay oo idaacadaha caalamiga ay ka hadleen dowladda Soomaaliyeed ayaa laga rabaa iyo bulshada Soomaaliyeed ceebtaas inay dowladda Soomaaliyeed ka dhaqdo inaysan dhicin sanadka soo socdo ama sanadaha soo socdo in baasaboorka Soomaaliga ah iyo qofka Soomaaliga ah uusan shirarka caalamiga ah tagi waayo inay arrintaas iyo ceebtaas ka hortagaan oo ay bulshada iyo caalamka iyo wadda Soomaaliyeed u soo bandhigaan dadka shirkaas ka qayb galay oo dalka dib ugu soo noqday iyadoo fiisooyinkii ay dalka ku galeen iyo shirki ay ka qayb galeen intaba cadeynayo iyadoo ILO iyo dadkii oo baraha bulshada ka warqabay ay arkayeen wafdiga dowladda soo qortay inta shirka joogtay farqi u dhaxeeyay inuu ahaa farqi aad u ballaaran oo ay dadka isweydiinayaan dowladda haddii 22 qofood ay codsatay in visa loo siiyo oo ay shirka ka qayb galaan maxaa keena sababta ay dad tiro yar oo aan 10 qof gaaraynin ay shirka ku matalaan marka su'aashaas waxay keentay shaki ballaaran waxaa isleeyahay shakigaasna waxaa mas'uuliyad ka saaran yahay wasiirka shaqada oo ahaa ninkii fiisooyinka u dalbay wafdiga shirkaas ka qayb galayay asaana waxaa isleeyahay uu ra-iisul wasaaraha kula xisaabtami doonaa iyo xukuumadda kula xisaabtami doontaa dadka Soomaaliyeed oo ah fadeexadaas baraha bulshada hareysayna si ay arrintaas isaga tirtiraan oo ceebtaas ummadda Soomaaliyeed bulshada loo soo bandhigo dadka shirkaas ka qayb galay iyo dadka fiisooyinka qaatay tiradooda saasna ay ku noqdaan in ummadda Soomaaliyeed
dowladda Soomaaliya ay ku noqoto mid nadiif ah oo wixii dhacay ay loo beeneeyo